Waad salaamantihiin meel kastoo dunida guudkeeda aad ka joogtaan. Waxaan idin hayaa barnaamij ku saabsan xayawaanada adduunka ugu khatarta badan iyo 10 qof oo u badheedhay inay la noolaadaan. Haddaba fadlan haddii aad ku cusubtahay channelka intaynaan u guda gelin barnaamijka, fadlan subscribe saar, commenti ayaad noogu dhaafi doontaa haddii uu barnaamijku cajab geliya insha Allah. Waad mahadsantihiin. Haweeneydan aad u jeedaan magaceedu waa Maria, waxay la nooshay mid ka mid ah xayawaanada adduunka ugu khatarista badan uguna khatarta badan leh. Maria, xayawaankan aad arkaysaan waxa uu muuqaal eegaya xaaska, balse yaxaaska iyo dhibaatadiisa kama shar yara. Maria waxa ay jeceshahay xayawaankan aad baanay u qadarisaa. Waxa ay bartay dhammaan waxyaabaha adduunka laga isticmaalo sida mootooyinka oo uu awoodi karoba inuu kaxeeyo mootada. Haddaba Maria oo ay dad badani kula taliyeen inay ka fogaato xayawaankan ayaan jeclaysan hadallada dadka, waxaanay mar kastaba ku adkaysanaysaa inay la noolaato xayawaankan. Waan aad iyo aad baanay u jeceshahay. Waxa uu la seexdaa meel, waxaanu kala soo toosaa meel. Maria oo xayawaankan si muuqaal toos ah u soo bandhiga sawatan. Guud ahaanba carruurta caalamku marka ay doonayaan inay ciyaaraan waxay doonaan ama ay jeclaystaan inay ku ciyaaraan agabka carruurta. Haddaba wiilkan yar oo u dhashay waddanka Cambodia ayaa ah wiil aad u mucjiso badan. Waxa uu jeclaystay jabisadan aad arkaysaan muuqaalkeeda. Jabisadu waa mid ka mid ah xayawaanada aad iyo aadka ugu khatarta badan leh oo dadkuna ay muuqaal ahaan iyagoo mar u dhowaanba cabsi ay ka argagaxaan. Haddaba jabisadan oo dhererkeedu sidaad wada arkaysaan aad u dheer yahay ayaa wiilkan yar waxa uu jeclaystay isagoo 4 bilood jir ah in uu la noolaado jabisadan. Haddaba jabisadan ayaa dhowr jeer tiraba 3 jeer oo aabbaha wiilkan dhalay uu dhowr jeer kaymaha gees uu u fogeeyay ilmihiisa khatartan. Haddaba jabisadan ayaa mar kastaba ku soo noqota guriga iyada oo mar kastaba jeclaysanaysa inay la noolaato wiilkan yar. Haddaba wiilkan yar ayaan seexan karin ilaa uu jabisadani ay seexato. Waa mid ka mid ah mucjisooyinka adduunka ay aadka ula yaabeen oo ay dad badani soo booqdeen wiilka yar sidaad muuqaalka haddaba ka arkaysaan. Gorilahan aad arkaysaan waxaa soo koriyay ninka la sawiran. Waa xanaaneeye xayawaanka oo aad dunida looga yaqaano. Ninkan waxa uu soo koriyay gorilahan ilaa uu 5 sano uu sidii wiilkiisa u koolkoolinayay. Kadib waxaa dhacday in ninkan uu ku noqday dalkiisa hooyo Ingiriiska isagoo fasax dheer oo 5 sano ah qaatay kagana maqnaa beerta xayawaanka. Haddaba Deni oo ah ninkan Ingiriiska ayaa 5 sano kadib u soo noqday gorilaha oo 10 sano jir ah. Haddaba waxyaabaha aadka dunida ula yaabanaya waxaa ka mid ah in isla markii uu muuqaalkiisa ninkan arkay goriluhu inuu markiiba hore ka gartay isaga oo indhihiisa ay kuba soo istaagtay ilmo sidii bashar u xiisay. Iga raallahada asxaabtida qaaliga, xayawaankan ayaa xayawaan aad u caqli badan sida ay dadku ku xusaan. Waana xayawaan aad iyo aad u xoog badan, ilaahayna quwad ku manaystay. aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. Fadlan haddii aad channelka ku cusubto waxaan kugu baraarujinayaa inaad subscribe saarto, like, comment iyo share aad nagu siiri karto. Waad mahadsantahay. waa 71 jir Brazilian ah kula nool meel ka mid ah xeebaha dalka Brazil. Waxa uu helay shimbir yar oo loogu magacaabo penguin. Shimbirtan yar aad ayay u khatar badan tahay, waana mid ka mid ah xayawaanada badda ku nool ee khatarteeda leh. Xayawaankan ayaa waxa uu badda kaga sugan xeebteeda ku soo caariday isagoo dhaawac ah. Odaygan 71 jirka ah ayaa soo qaatay waxaana muddo aad u dheer ku xanaaneynayay gurigiisa. Kadib markii uu xanaaneyn dheer u sameeyay, shimbirtii ay awood u yeelatay inay dhaqaaqi karto, socon karto, ayaa odaygan 71 jirkii wuxuu isku dayay inuu ku celiyo xeebtii uu ka soo qaaday si ay ugu noqoto geygii ay ka timid iyo ehelkeedii. Haddaba odayga ayaa markiiba waxay fajiciso ku noqotay in shimbirtii ay qaadan weyday inay xagga badda u dhaqaaqdo iyadoo markastaba u soo cararaysay xagga uu odaygu ka jiro. Waa kan muuqaalkan isaga oo dhammaystiran. Odaygan Brazilianka kadib wuxuu go'aan ku gaaray inuu shimbirtan inta noloshiisa ka harsan ay la noolaato. Odaygan ayaa waxa uu
sidaad muuqaalkan ka arkaysaanba ku faraxsan yahay shimbirtan oo khatarteeda wadata. Waa Finlandis u bareeray inuu koriyo maroodiyaasha oo ah qaar ka mid ah xayawaanada adduunka ugu halista badan leh. Maroodigu waa mid ka mid ah xayawaanada adduunka ugu quwadda weyn leh, waana mid uu Ilaahay karaamadiisa iyo awooddiisa u dhammaystiray. Haddaba maroodiga oo ah mid mararka qaar ah dabjoog ahna duurjoog, ayaa ah mid markastaba la noolaan kara bini'aadanka, inkasta oo uu yahay xayawaan aad markastaba u cadho badan, isagoo mararka qaar haddii uu cadhoodo aan haba yaraatee kala aqoon karin waa saaxiib. Xayawaanka maroodigu waxa uu hadda ku nool yahay sida muuqaalkan ka arkaysaan ninkan Finlandiiska ah tuulo uu kaga nool yahay dalkiisa hooyo. Ninkan waxa uu bareeray inuu xanaaneeyo maroodiga oo halistiisa wata sidaad muuqaalkan ka arkaysaan. waad mahadsantiin dhammaan akhyaartayda aan aadka u jeclay. haddii muuqaalkan idin cajabiyey fadlan subscribe, like, comment insha allah muuqaal dambe oo xiiso leh. lamaane Aad baan idin raashiyan salaamay ah meel ayaa kasta waxay joogtaan. bilaabeen